السلام عليكم. labadii kun iyo 17 ayaa maalin nin adeerkay aan uga sheekaysanayna ayaan la soo hadal qadarimaha Itoobiya iyo damaca ka leedahay Soomaaliya waxaan ku iri Itoobiya waxa suuraa inay dhulkeena intii ku soo dhushay qayb ka mid ah qabsato markaas uu igu raader dhulkan oo in siyaasadda maanta caalamka sida loo dishiyay juqraafi ahaan wadan ku dilo dhulka qabsada ma jiro 2022 ruushka ina baray in inta wadan ku duuli karo dhulka qabsan karo Azerbaijan way ku xigtay waxa markaa iminka adduunka caanka ah sida Israa'iil beemka ay wado wadanku haduu awood leeyahay oo uu awoodo inuu dalka uu danta ka leeyahay awood ahaan wax kaga dhamaysto maanta uu kaga dhamaysanaya sida Ruushka iyo Azerbaijan iyo Israa'iil beemka ay sameynayaan kaas waa qodob labaadna waxa weeyaan Ethiopia ninka leeyahay Abiy Ahmed waa nin ku xeel dheer abuurista mashaakilka markasta wuxuu abuuraa mushkilad uu bulshadiisa ku jeediyo mushkiladaas ama dagaal gudaha ha ahaato ama siyaasad dibadda ha ahaato